boqor Cismaan Maxamuud Buurmadow oo kamid ah boqorada Soomaaliland ayaa wareysi u siiyay telefishinka qaranka Soomaaliland waxa uu ku soo dhaweeyay aqoonsiga gobolka Shafiil ee dalka Ingiriiska aqoonsaday Soomaaliland isagoo oo qodobo kalena ka hadlay boqor Cismaan Maxamuud Buurmadow waxa uu ugu horeyn uu tilmaamay muhiimadda arintani u leedahay dalka isagoo xusay in ay tahay tallaabo hore u riixi karta i'tiraaf buuxa oo Soomaaliland ay ka hesho dalka Ingiriiska iyo guud ahaan beesha caalamka marka hore horta waxa weeyaan arrinkaasi arrin aad iyo aad u qiimo badan buu ahaa wuxuuna ku yimid dadaal ay sameeyeen jaaliyadda reer Soomaaliland iyo ururadooda ay ku leeyihiin reer Soomaaliland ee Shafiil runtii waxa weeyaan miisaan aad iyo aad u culus oo siyaasiya oo marka doorashooyinka iyo codbixinta runtii midaysan oo ay meel wada mariyaan oo badanaa waxa weeye ay siinayeen codka lebarka oo kale ay codka siinayeen marka wuxuu soo jiitay indhihii dadkii gobolka deganaa run ahaantiina waxaan odhan karaa waa jaaliyad aad iyo aad u furfurcoon aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dadaalka badan ay sameeyeen waxaan odhan karaa arrimaha siyaasadda arrimaha dibadda waxay ka qabteen door weyn oo shaafi ayay ku leeyihiin Soomaaliland inay kor u qaadaan boqor Cismaan Maxamuud Buurmadow waxa uu geesta kale ka hadlay doorka saxaafadda ee hadba arrimaha jira ay ku wajahdo iyo hanaanka ay u shaqeeyaan horta run ahaantii anigoo saxaafadda Soomaaliland markaan u arko eego aan ka hadlo runtii anigoo saxaafadda jecel waliba xukuumadaha soo jireen mid walba ku dhaliilayay inaanay saxaafadda kobcin oo wax la qaban waxaan aaminsanahay ninkii qofkii markuu saxaafaddii u dhisay wax weeyaan inay xukuumaddu hatta mucaarad kasta ahaatay in la kabo in laga bixiyo qalabku wax ku daabacanayo in la taageero in kirooyinka laga bixiyo in wax badan lala qabta ay ahayd waayo dad soo korayno dimuqraadiyadda waxaad arkaysaa saxaafad mucaarada oo afarta wasiir reerkoodaana amaanaysa afarta reerka kalena mucaaradayso caayayso oo wax ka sheegaysa oo aan ku dhici karayn ka xigay inuu wax ka sheego taasi ma noqonayso laakiin waxa weeye waxa ahayd qofku mucaaradka markuu yahay waa inuu ka bilaabaa toosinta ka cid u xigay inuu ka bilaabay ahayd boqor Cismaan waxa kale oo uu ka hadlay waxqabadka xukuumadda iyo muhiimadda dhismaha wadooyinka oo kuway ka tahay wadada magaalada Ceerigaabo anigu waxaan u arkaa Soomaaliland waxa weeyaan waa xididkii dhiigga habayay isku xidhayay wadadaasi inay tahay oo Soomaaliland hadii la doonayo inay dhaqaaqdo waa inay wada isku xidhay yeelataa Ceerigaabona waxa weyn odhan karaa waa gobolka Soomaaliland intiisa kale ayuu leeyahay aniga shakhsiyan waxa weeyaan waxay leedahay ahmiyad gaar ah si gaarana way taabanaysaa mar walbana diyaar baan u nahay inaanu wixii nala qaban karaya laakiin shacbiga reer Soomaaliland waxa odhan lahaa wadada horta ahmiyadda halboolaha in la siiyaan odhan lahaa waxaan odhan karaa mashaariic fara badan ayaa hadda runtii xukuumaddu ay isku dayday inay wax qabato ama dhagax dhigtay anigu waxaan odhan lahaa war maanta meel kastoo Soomaaliland wax loo qabanayana anagu waan soo dhaweynaynaa wadada Ceerigaabana waxay noo tahay halboolay noo tahay shacbiga Soomaaliland isaga u baahan inuu waa dalkii intii ugu muhiimsanayd waa intii taariikhiga ahayd ugu dambeynna waxa uu soo dhaweeyay safarkii madaxweynuhu dhawaan uu ku maray gobolada dalka guud ahaan oo uu sheegay in ay ahayd mid lagu diirsado dadweynahana u lahayd muhiimad gaar ah